waxaan ka codsan lahaa inay Soomaaliland sii daayaan iyaguna nabad bay helayaan waayo hadday u ogolaadaan ictiraafkooda qaraxa iyo dhibaataduna way ka baxaysaa ismaqal aragti wanaagsan kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal Soomaalida shidan hawada waxay idin soo marinaysaa hambalyo ku aadan sanad guuradeeda koowaad waxa inoo soo socda barnaamij aynu halkaasi kula dabaaldegi doonay shacabka fanaaniinta Soomaaliyeed ay hambalyo ugu dirayaan hawday mala'aanina ayaan idin leeyahay saacadaha soo socda ay hawada ku soo jira hadii aan ugu dagalnana qaybtan amaanta barnaamijka ku soo qaadanaynana waxa ay tahay fanaanka Maxamed Saciid PK oo iminkaba ku sugan Yurub halkaasina show ku dhiganaya una baxay inuu ka qayb galo barnaamijkii la oran jiray Somali Week ee ka dhacayay sanadkan dabayaaqadiisii ama bishii la soo dhaafay ka dhacayay magaalada London xarunta dalka Ingiriiska ayaa waxa uu mar kale ku tiqtiqsaday oo muujiyay in uusan doonayn in uu xamar hadaladii xumaa ee u geystay uu dib uga noqdo balse mar labaad waxa uu ku tiqtiqsaday magaalada Muqdisho oo maalinimada shalay ay ka dhaceen qaraxyo aad u xoogan ay argagixisadu kula beegsadeen ama ku xasuuqeen shacabka Soomaaliyeed waxa uu halka la soo istaagay hadalla aad looga gareeraxo oo qof kasto damiir Soomaalinimo ku jirto ay la yaabto maadaama bandhiga daramashu uu yahay afka dadweynaha una soo gudbinaya wax walba dadka quseeya fanaanka Maxamed Saciid PK waxa uu ka soo jeedaa gobolada waa Somaliland ayuu ka soo jeedaa Somaliland asagoo taageersan haddana ma wanaagsan dhammaan fanaaniinta Soomaaliyeed way ka soo wada jeedaan magaalada Hargeysa oo waa hooygii fanka halkaasi lama inkiri karo fanaaniintii ugu waaweynay ee hoballadii qaranka waa bari ku jiray dhammaantood ma oran karay badankood waxa ay ka soo jeedeen gobolladii waqooyi ee dalkii markii ay dalku u nabad ahay iminka koox dhan oo fan wadato xidigaha geeska liira ayaa ka soo jeeda gobolladaasi Somaliland haddana cid hadallada uu ku dhaqmaya ama sidaasi ugu tiqtiqsanaya magaalada Muqdisho maahan sidaad ogtiinba Maxamed Saciid PK waxa uu ku dhashay sida uu hadalkiisaba hadda ka hor waraysi uu ku bixiyay magaalada Muqdisho magaalada Garawana mar ayuu ka heesi jiray fanaankii Maxamed Bakeeri la oran jiray PK iminka uu soo gaabsaday hadallada uu yiri aan idin la wadaago waxaan ka codsan lahaa inay Soomaaliland sii daayaan iyaguna nabad bay helayaan waayo hadday u ogolaadaan ictiraafkooda qaraxa iyo dhibaataduna way ka baxaysaa waa walaalahood Muqdisho haddii la iga maqlayo waxaa loo lahaa Soomaaliland sii daayay haddaan la isxaqiray waa dad jira madaxweyneyaal fara badan soo maray la isma qariyo anigu cidna kama hibayso Somaliland ha noolaato Somaliland ha noolaato ayaan leenahay oo ummadda Soomaaliyeedna ha wada noolaato haddaba daawadayaal Maxamed Saciid PK mar walba waxa uu soo saaraa hadalla xanaf leh oo ku diray dadka reer Muqdisho isagoo kala socsooca dhammaan ummadda Soomaaliyeed fanku ama dadka fanaaniinta mar kastaba af Soomaali ay ku heesaan Soomaaliyo dhanna way dhageysataa adigoo qadiyadaada aaminsan haddana dad looma gafo kalsi horeysay ayuu yiri uma socdo halkaasi waana magaalada uu ku dhashay sida hadda ka hor sheegay haddaba daawadayaal waxa hadalkaasi ka jawaabay Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Nimcaan Hilaac oo ka tirsanaa jiray hoballadii xidigaha geeska iminkana ah agaasimaha guud ama afayeenka hobalada qaranka ee waa bari si mahmaha ama si gadisan iyo si dadban iyo si toosanba waxa uu weeraray Maxamed Saciid PK waxa uu bartiisa uu Facebook ku leeyahay uu ku soo qoray hadal sida tan u dhacayo allaha janneeyay buu yiri abwaan afguriye hees uu horay u sameeyay ayaa waxay oran jirtay ama kamid ahaa erayadeeda sidan tasoobaye halayga qusto qosol buu soo raacsiiyay PK waxa uu yiri PK war maxaa la isfasaxaa miyaanad war u hayn hadda inay reer waqooyigii u soo qaxaan koonfurta Soomaaliya ayuu yiri misaacajiladii SNM ayaa u daaran isaga ayuu yiri oo xaaladda dalku ku jiro lama haysto war sidii hore waa la isaga soo dhow yahay oo waa la laab xaaray buu yiri oo waa la wada shaqaystaa buu yiri waxaan ka ahayn in yar oo adigu kamid tahay oo ay xajiintu ku hadhay buu yiri mooyaane war mooga xaalad haysato ay ku jirta xamar waatii dusha ku sidata buu yiri dadku waa mid qura waqooyi aniga u dhalano walaalahay koonfur jecel buu yiri siyaasigu yeelkiye dadka anaga xal siinayna ayuu yiri Muqdisho waa Hargeysana waa Muqdisho hadalba waa gamde Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Nimcaan Hilaac baa ku tiqtiqsaday ninkii la oran jiray fanaankeenii Maxamed Saciid PK waa fanaan la jecel yahay hadalku ka xumaaday mar walbaana ummadda Soomaaliyeed waxa loo baahan yahay inaad dhax u noqoto wax taasi ka wanaagsan lama hayo adigoo Somalilander ah oo
sheega raadsanaya xornimadaada ama aan iraahday gooni goosadkaaga ayaad haddana xanafta iska ilaalin kartaa mase wanaagsana in aad dadkii iyagoo qarax ku dhaca meeshaad kasoo tacsiyeyn lahayd aad tiraahdo hana daayaan markaas bay nabad noqonaysaa sababta asagu uu ka dambeeyo qaraxa ka dhacaya magaalada muqdisho wixii ka dhacay Allah qoray Hargeysa haday nabad haysatana Allah qoray masama wanaagsana inaad saas u dhaqantid Maxamed Saciid BK ayaan arrinkiisi intaas ku afmeerayay daawadayaal hawday malaanina oo waxa soo socda barnaamijka dabaaldega saacada gudahood inta aad daawateen ay idinku soo wajaan hadii aad la socotaan dib ayaad uga daawan doontaan fadlan subscribe sar channelka Soomaalida Shidan كان ربي مخيس